ayaan ka mid ah waxa kale oo yana xusid mudan muddo 10 sano ah ayaa waxaan ka shaqaynayay hay'adaha qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda UNDP iyo hay'adda UN Habitat haddaan waxbarashada wax yar ka sheego waxaan haystaa 2 shahaado oo shahaadada heerka labaada mid waxa weeyaan master's degree oo ah xiriirka caalamiga ah iyo maaragtay diblomaasiyadda oo aan ka qaatay jaamacad Kampala University Leira dalka Uganda waxa kale oo aan qaatay post graduate oo ah international management oo aan ka qaatay jaamacad Leira Open University oo ku taal Malaysia shahaadadeydii koowaad waxay ahayd maamulka iyo ganacsiga waxaan ka qaatay jaamacadda Amuud inta ka hor waxaan haystay diploma education oo ka qaatay macadka Islaamiga ee Djibouti ku yaala secondarygaygii waxaan ka baxay macadka Islaamiga ee Sacuudiga ku leeyahay Djibouti dugsigaygii dhexe ama hoose dhaxaan idhaahdo waxaan ka baxay dugsiga dhayga la oran jiray ama wiilasha boorama la oran jiray imikana alaqsa la idhaa uuladaydii iyo waxbarashadaydii iyo dhalashadaydii waxay degmada boorama halkaas oo ku barbaaray waa taa guud ahaan taariikh nololeedka Mahdi Cumar Sheekh way Mahdi hadda waxa tahay xidhmo taagan golaha wakiilada Soomaaliya musharax waqti ma ahayd markii kugu horeysay ay ku dhalatay inaad soo gashay xidhiidh dhinaca siyaasadda oo gobolka hawl ku matashid musharax golaha wakiilada Soomaaliya waqtigeed markii uu isku dhalatay horta muddo aad u fog oo xataa ardaynimadeydii inaan siyaasi noqdo waxay ahayd hammi muddo dheer ku jiray laakiin kolba meel bay soo maraysay markii xukuumaddan u dambeysay dhalatay Muuse Biixi Cabdi oo madaxweynaha ka yahay ayaan go'aansaday inaan ku biiro fulinta marka waxaan isku dayay inaan boos wasiirnimo helo way ii suurtageli weyday kolkii dambana waxaan go'aansaday inaan noqdo wakiil matala bulshadeeda oo u tartama golaha wakiilada ee Soomaaliland sidaasayna dadkaygii igu taageereen sidaasanan ku soo galay saaxadda siyaasadda waad Mahdi ka hor taariikh shaacin inaad tahay musharax u taagan golaha wakiilada Soomaaliland adiga Mahdi ahaan maxaad muwaadinahan adigu muwaadinahan adu soo qabatay bulshada oo maanta ku dooran kara wallahi wax badan man qabtay oo aanan la soo koobi kareyn laakiin haddaan tusaalayaal yar ka bixiyo waxa kamid ah anoo ardaya oo jaamacadda Amuud dhigta ayaa waxaan aasaasay iskuul luqadaha lagu barto oo alqalam la oran jiray iskuulka alqalam luqadda Ingiriisigu aad u dhigi jiray ardaydii ka baxday wuxuu saameyn ku yeeshay inay waxbarashadii kale ee jaamacadda ay ardayda u sareysan noqdaan saadaradeedna imika waxaad helaysaa adduunka oo dhan iyo wadanka waxaad ka helaysaa iyagoo dhakhtarra iyagoo injineerra iyagoo maaragtay meel kastaba nolosha kaga jira marka iskuulkaas oo kale wuxuu ahaa tusaale fiican oo aan u bilaabay waxa kamid ahaa oo kale aan ku faani karaa waxaan kamid ahaa ururadii dhalinyarta ee gobolkan Awdal ee volunteerkii mutadawacnimada ku shaqeynay ururkii Akaara la oran jiray ayaan aasaasiyaasheedii kamid ahaa ururkaasi wax badan buu gobolka ka qabtay laakiin waxa ugu muhiimsanaa wacyigelintii AIDS-ka oo bariga loo arkayay AIDS-ku inuu ku dhaco uun dadka gaalada ah ayaa waxaan noqonay dadkii wacyigelinta sameeyay bulshadeenna war xanuunkan cid kasta oo ku dhacay hala iska ilaaliyo waxa kale oo iyadana xusid mudan oo in la sheegay iyaduna istaahisha ururadii wadankan ka bilaabmay ee la oran jiray akhriska ama akhris wadareedka ama reading clubska dadkii aasaasay ayaan ka mid ahaa welina ka mid baanahay oo urur leeyahay akhris wadareed oo bishiiba laba buku soo bandhiga library-ga ama maktabadda Siilaanyo ee Hargeysa ee weli ka mid ahay marka ururada volunteer-ka ee wax akhriskana weligiiba waan bilaabay ilaa haddana waan ku jiraa ugu dambeyn waxaan kugu soo gabagabayn lahaa mashruuc caan baxay oo la yiraahdo JBLG oo malayn inaad maqasho oo dawladaha hoose ka shaqeeya oo qaramada midoobay leedahay mashruuca waxaan ka ahaan jiray team leader ama waxa la yiraahdo area manager mashruucaasi waa caan dadku waxay malayn inuu dhaqaale badan haysto mashruucaasi ma leh dhaqaale badan wuxuu ka mid yahay mashaariicda ugu yar dhaqaalahooda ee wadanka timaad laakiin muxuu caan ku noqday wuxuu caan ku noqday koow horta maamulkiisa fiicnaa sida loo design gareeyaa fiicnaa
ugu dambeynna waxa ugu muhiimsanaa shaqaalaha ka shaqeeya 5 hay'adood oo qaramada midoobay iskugu tagay shaqaalaha ka shaqeeya waxay ahaayeen dad khibrad iyo aqoon iyo waxbarasho lagu soo xulay anuguna kuwaasaan hogaamin jiray oo aanu hogaamiye ama team leader saasuu mashruuc caan ku noqday dadkuna waxay moodayeen inuu mashruuc aad u weyn oo dhaqaale badan haysta yahay marka taasina waa tusaale kale oo kamid ah inaan ahay maaragtay dadkii wadankan wax ka geystay oo maaragtay wax badan ka soo qabtay intaasaan kugu soo gabagabayn lahaa tusaalayaashuna way socon karayaan waxa soo sheegtay dugsiyo inaad asaas u haydo muxuu ahaa ay ka soo bixin dad muxuu ahaa muxtaxili mutaalimiina dugsiyaas markaa boormi ku yaaleen magaciisa muxuu ahaa dugsigaas waxa la oran jiray dugsiga luqadaha ee alqalam marka luqadaha ayuu ahaa ingiriisku dhigi jiray ilaa hadda iskuulkii secondary buu isku bedelay marka gidaarkiisa waxa ku qornaan jiray سجل مكانك في التاريخ يا قلم فها هنا تربى الأجيال والأمم يعني وحنا تاريخ ذا يسكو قلمو إن هالكني وحنا نقول دونتها مال شمع على قش ذي والدنيا ذو درنا ذلك كسب حقيقي قاراني مركب سؤال كالقلم بالورنجري صاحب مهدي وقت كان وين تبدأ السياسة دي أي سلادين تي دانير دي دقنكي يتبدأ سوق السياسة ده ودمانتود أيهين محوها السياسيين تبدأ أيهين adiga muxuu ahaa maxaa ku kalifay ama aad ku door biday inaad ka mid noqotid siyaasiyiinta gobolka Awdal oo qayb ka noqotid runtii waan ku sheego horta hami badan ba muddo dheer igu jiray bulshadaadana waa inaad isbedel ku samayso marka qofku hadduu farsamo ku shaqaynayo aqoon hadduu ku shaqaynayo wax yar buu bedeli karaa laakiin markuu qofku boos weyn joogo oo xil ah qaybaha dawladda qaybtu doonay ha ahaadee isbedel weyn oo noloshoo dhan taabanaya laga bilaabo lowicado ilaa iyo laas qoray ayuu sameyn karaya marka xildhibaanka golaha baarlamaanka tagay waa xildhibaan dhammaanba nolosha dadka reer Soomaaliland oo dhan saameyn karaya saadaradeed hamigaygan kor u qaaday waxaan rabaa inaan xildhibaan golaha baarlamaanka noqdo gobolka Awdalna matalo Soomaaliland oo dhanna matalo isbedelada aad sheegtay maxaa kamid ah oo aad muxuu ahaa isleedahay waxbaad ka qaban doontaa haddii aad noqotid dhinaca siyaasadda mar hadda soo gashay haddii noqotid xildhibaan oo ku guuleysatid isbedel sheegtay la iyo loo yacdo ama Soomaaliland oo dhan way badan isbedeladu qaybtid jeceshay inaad focus ka saartid oo wax ka qabatid runtii waad mahadsan tahay horta isbedelo badan baa la sameyn karaa laakiin waa runtii qofku wax kastaba isagu ma qaban karo anu waxaan jecelahay siyaasadda iyo acts ama xeerar ka soo baxa baarlamaanka xeerarka baarlamaanka ka soo baxaya anu waxaan jecelahay inay ku yihiin dadka danyarta had iyo jeer u daneeya waxweyn cashuuraha la qaaday haday noqoto waxyaabaha la soo rogay haday noqoto inay noqotaan kuwa had iyo jeer danyarta meeshu doonaha joogay loo daneeyo borobur policies baa leeyahay ama borobul acts yani wax weeyaan waa xeerar dadka jilicsan u daneeya markaas daraadeed waliba aan waxaan sii jecelahay qaybta socialka ama qaybta arrimaha bulshada waxbarashada iyo maxaan idhaahdaanay biyaha iyo caafimaadka arrimaha socialka ayaan aad u sii daneeya marka kuwaasaan insha Allah ku dadaali doona xeerarka khuseeya imika baa wajaan xeerar badan oo dhinaca waxbarashada la xiriira oo caafimaadka la xiriira maxaa isleedahay wixii waxba ka qaldan maadaama xeerarka imika ay jiraan maxaa isleedahay waxba ka qaldan xeerarkaasi oo leedahay waad bedeli doontaa hadda tirtid golaha wakiilada waxba ka qaldan maaha laakiin waxaan u jeedaa waxba mar kasta dhiman waxa weeyaan horumarku had iyo jeer waa under construction baa leedahay yani wali uu dhismayaan ma jiro wadan horumarkiisu maalin dhamaystirmo had iyo jeer wax la yiraahdo waa under construction dhisma socda had iyo jeer marka waxa weeyaan waxaan leeyahay xeerar waxbarasho way jiraan xeerar biyaha way jiraan xeerar maaragta caafimaadka way jiraan laakiin waxaan leeyahay hal la sii horumariyo hal la improve gareeyo halkii maanta taagan yihiin waxa lagu sii daro marka imika dastuurka kala hadaad eegto xeerar badan baa jira oo la leeyahay xeer baa qeexi doona kuwa in badan baa la hirgeliyay waana u mahadnaqaynaa cidii hawsha samaysay laakiin qaar kale oo dhimanna way jiraan marka aan waxaan isleeyahay kuwaas aad insha Allah ka qayb qaadan doontaa si active-ana waad u buuxin doontaa roolka layga filayo golaha muxuu haddana soo noqon gobolka Awdal ee jeceshay inaad ku matashid golaha wakiilada Soomaaliland waxa jira inuu aad uga tabanayo dhinacyada saami qaybsiga oo inta badan bulshada gobolka Awdal aad uga muxuu hawdaleelaa in saami qaybsiga aan si sax loo qaybin dhinaca siyaasadda golaha wakiilada hadda tagtid maxaad isleedahay waxbaad ka bedeli doontaa ama aad ka qaban doontaa in shacabka gobolka Awdal ay helaan xaqooda wasaadu maamulshada horta gobolka waa inay wax ka maqayeen bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa weeyi gobolka Awdal wax way ka maqan yihiin
gobollo kale oo ay wax ka maqan yihiinna way jiraan laakiin su'aashu waxay tahay maxaa maqan dadku iminka gobolka Awdal markay ka hadlayaan badana waxay ka hadlaan lambarka tirada golaha wakiilada kaliya ka hadlaan laakiin power sharing baa la yiraahdo waxa weyn waa in la qaybsado awoodaha maamulka waa in la qaybsado resource iyo hantida maaragtay wadanka taala waa in la qaybsado miisaaniyadda waa in la qaybsado shaqaalaha waa in wax la wixii macaawinooyinka waa in la qaybsado wax la wixii wadanka imanaya waa in la qaybsado marka qaybintaana dad kala duwan ayaa ka mas'uula baarlamaanku qaybo kooban buu ku leeyahay qaybaha ku leeyahay waxa kamid ah miisaaniyadda kale sa gobolada loogu qaybinayo sida gobolka aad u metelayso wixii soo gaaraya aad u hubinayso kuwaasi waa waxa weyn mas'uuliyadaha ku saaran weeyaan mas'uuliyada kale guud baa jiro dhinaca gobolada kale ee Soomaaliland waxa weeyaan wixii ka maqan waxa weeyaan markaad halka tagto waa inaad u hadasho waa inaad gobolkaaga kaliya hadlinay gobolada kale laftigooda hadaad aragto gobol ay wax ka maqan yihiin waa inaad u hadasho marka aanu waxaan isleeyahay gobolkan wax ka maqan yihiin gobolada kale wax ka maqan yihiin anuguna waxaan aaminsanahay gobolkaygu waxay doonayaan aad baan u garanayaa si aanu helana waxa weeyaan waa in horta bulshadu ay is organize karayso is habayso waa in hogaamiyaasheeda siyaasadda ku dabafayso waa in hogaamiyaasheeda dhaqanka ku dabafayso bulshada is ixtiraamto ay noqoto marka waxay ridan karaan waxa ay doonayaan oo dhan way ridan karaan marka anaguna waxaan qayb ka noqonaynaa insha Allah taala halganka gobolku ugu jiro wixii uu doonayo inuu helo wama naylu almadalib bitamanni walakin tu'khadu dunya qalaban balad yani doonista doonaysa maaha wax iska jeclaata baad helayso wayna xoog iyo dadaal iyo isnidaamin iyo aad ku soo ridato marka qayb waxaan ka noqonaynaa halganka gobolku doonayo wixii ka maqan inuu ku helo waad qartay in gobolka wax ka maqan yihiin waxaana sheegtay in sida sax ah loo doono kala yihiin in dhaqankiisu xinaadaan adigu mahdiyahan ma haysaadu qorshaad oo hal iyo laba oo isleedahay doogaas loo mari karaa in saamiga gobolka ka maqan gobolka Awdal ay sanadka dib si aan loo gelin imika sida loo golay karay oo heli karaan waxa weeyaan waxyaabaha kamida horta bulshadu waa inay isku timaado indheer garadkeedu tacliimiinteedu waa isku yimaadeen waa inay qeexaan maxay naga maqan maxaan se gaari karnaa had iyo jeer bulsho kastoo jirta waxa ay doonayaan iyo halka ay joogaan gaab baa u dhaxeeya oo in farqi baa u dhaxeeya marka farqiga hal habeenku laguma soo koobi karo sanadka dambe la soo koobi laakiin waa in talaabooyin la qaado lagu gaaro maxaan idhaahdaan halkii la doonay marka aan waxay la tahay bulshadu waa inay isku timaado waa inay si degan oo aanay maaragtay caadifad iyo xamaasad iyo maaragtay aynu ku jirin waa in la yiraahdo horta maxaan istaahilaa maxay naga maqan farsamadeen ku heli karnaa ma xisbiyadan xoojino ma hadaad gaar isku saarto oo tiraahdo anu gobolkayga keliyaan horumarinayaa gobolada kale Soomaaliland waxba lama yeelanayo waxa waad hadhaysaa way ma jiro gobol kaliya horumarin kara haddii wadanka intiisa kala dib u dhaxsantahay marka waxa muhiimka gobolkani marka aad qorshihiisa degto waa inaad qorshayaasha gobolada kale lagu horumarinayana aad qayb ka ahaato marka aan waxaan jecelahay inaanan iskoobin oo aanan gobol kaliya aanan maaragtay u shaqeynay aan noqono Soomaaliland oo dhan siday ku horumari lahayd gaar ahaan tolka oo aan uga jeedo cid aad markaa metelayso ee gobolka aad metelayso dad la saanad metelayso iyo dad Awdal metelaysaba inaad markaa xaqoodii u doonto si gaar ah ugu advocate garayso taasina waa waajib ku saaran marka diyaarna waanu nahay aniga iyo asxaabta kale ee maaragtay aan ku jirno tartanka ku jirna inta badan xildhibaanada laga soo doorto gobolka Awdal markay tagaan kursiga ee doorashada dhamaato ay ku guuleystaan waxa aad loogu xantaa in deegaanada laga soo doortay inay dib ugu noqon oo baahiyaha deegaanadaasi ay iska ilaawaan maalinta ay doorashada ay ruuxa hadana ay u soo tamayaan hadii ay rabaan mar labaad in hadana deegaanka ay ku noqdaan iyadoo ay ugu dambeysay markii ay soo doorteen hore marka fikirka noocaas adiga mahdiyahan maxaad ka bedeli kartaa hadii aad noqotid xildhibaan gobolka wakiilada Soomaaliland horta waxaan islaahay xildhibaanada laftigooda waa la dulmaya hadii la yiraahdo xildhibaan ku noqday deegaankii uu ka yimid maba jiraba hadii la yiraahdo sidaana maaha aan waxaan aaminsanahay way kala duwan yihiin waa shakhsiyaad kala duwan qaar badan baa goboladoodii ku noqday degmooyinkoodii ku noqday tuulooyinkoodii ku noqday qaybaha arrimaha bulshadana ka qayb qaatay kuwa kale oo aan ku noqono way jiraan marka aan waxaan islaahay waxaan anu ka mid noqon doonaa qaybta ku noqota bulshadii ay metelayeen baahiyoodana ka warqaba maxaan idhaahdaan wixii ay u tari karaanna
la qabtaan noqon doona insha Allah waan u dadaali doonaa haddii la haydo waxa laga yaabaa haddii aad muxuu ahaayey uu rabbi ku asturo oo noqotay xildhibaan golaha wakiilada Soomaaliland hadalada maanta duumanayay inay yihiin hadallo la soo celin karo oo ku yaala marka bulshada gobolka Awdal ama bulshada adiga ku dooranaysa maxaad hal iyo laba aad u ballan qaadi kartaa oo leedahay baahiyahooga asaasiga waxba ka qabanto deegaanada aad imika codka ka doonaysa waxaan dadkaan matalayo u ballan qaaday laba qodob mid waxa weeyaan horta baarlamaanka shaqadiisa in la gartaa fiican baarlamaanka shaqadiisu adeeg bixin ma adeeg bixin waxa leh golahayaasha deegaanka ee degmooyinka golaha baarlamaanku waa sharci dejin golaha baarlamaanku waa ka ku ilaaliya xukuumaddu inay maxaan idhaahdaan mashaariicda ay fulinayso si sax ah u fuliso golaha baarlamaanku waa ka xukuumadda ku ilaaliya in barnaamijyo cadaalad ay wadanka ka fuliso waa in aan sharciga soo saarno caama oo wadanka wax u taray taas weeyaan anaga mandate-keegu laakiin as a social member xubin kamida bulshadaada meeshii laga soo doortay waa inaad tigtaa waa inaad u hadashaa waa inaad u campaign garaysaa waa inaad wax la raadisaa laakiin xagga xeerka markaan ka hadlayno annagu waxa weeyaan waa xagga sare oo ah inaad wadanka xeerar wada gaadho oo wax u tara tuuladii aan ka imidayna wax u tara tuulooyinka kalena wax u tara kuwa waa inaan aad uga shaqeyno diyaarna waanu nahay waxaan u ballan qaadayaa khibradayda iyo aqoontayda iyo maaragtay inta karaankaygaaba in waxaan ka hakranayaa aanay jirin waan soo maray dhulkii aan u tartamayo dhul badan oo bilaa biyaa jira dhul badan oo waxa jira bilaa MCH iyo goobo caafimaad lahayn dhul badan oo waxa jira aanan iskuul lahayn waan ogahay maaragtay duruufaha ay ku xeeran yihiin markaas dawladdu waxaan ku dadaalaynaa xukuumadda qaybta adeegyada ka mas'uulka ihi inay si cadaaladana wax u qaybiso dhulkaan ay wax geeyaan insha Allah ta'ala marka waxay sheegtay inaad u qabanaysid bulshada u ballan qaadaysid ee kamid yihiin inaad deegaan sahlan biyo oo xukuumadda aad u hadashid u dootid maadaama tahay xildhibaan golaha wakiilada Soomaaliland waqti intee lagu qaadanaysaa oo isleedahay wax ku qaadan kartaa 2 sano mise 5 sano lagu dooranayo ay ku qaadan kartaa in deegaanadaasi ay wax u qabtid oo cabashooyinka deegaanka ka soo yeeraysa ama deegaanka aad u codka aad ka helisid dabooli kartid horta waad mahadsan tahay horta waxay la tahay maalintan kursiga ku fadhiistaba dadaalkeeda waan bilaabi doonaa insha Allah ta'ala waayo anigu ma ihi baarlamaankana waan la shaqeeyay xukuumadana deewaaniga kule 2 sano iyo barkii u dambeysay waan la shaqeynayay nin Hargeysa muddo badan ku noolaa baan ahay garanaya maaragtay abaabulka iyo sida maaragtay wax loogu raadin karo dhulka ay dhibaatooyinka ka jiraan marka maalinta koowaad ba insha Allah waan bilaabi doonaa halgankaas midhadhalkiisuna Allu ku xidhan yahay iyo maaragtay sida ay wax u hirgalaan بريت هذا تقول ستيف ونقطة حلبان قلها وكذا سوماليان وحي بشو كقفلي وحي أصلا شيكتين لكن هدي أدويدين وما دام تتر لقى ليو أدوية كتان وارد صبح كتمر هذا أدويدين أدي واحد تهون وها قف وحقوق من كريه حلبان قلها وكذا سوماليان هدو نقول قبل كواد بشديسة بس واحد تقف أي داعب كتهاي وهدو واجبة وها هي قلها وها كرسي قلها وكذا سوماليان هل كي وصل كريه أو كاني كلسي كريه وخل ما كريه بشدة وبيحين كريه horta qofku waa inuu xisaab sameeyo markuu tartankan galayo iyo imikaba runtii xisaab adag baan sameeyay xisaabtii aan ku soo bixi lahaana waan dejiyay rajadeyduna 99% inaan soo baxayo ayay sheegaysaa ta'allana waa meesheeda haddii ay se afka taada baan ku raacay ay sida kale u dhacdo deewaani kugu yidhi volunteer baan ugu shaqeynay ummadayda imikana waan u shaqeyn doonaa siyaasi soo kordhay oo wadanka ku soo biiray baan ahay baarlamaanka siyaasi kuma ihi laakiin dawladda iyo wadanku uu balaadhay meelo badan oo laga shaqeeyo oo dawladda laga galana way badan marka waxaan ahay siyaasi ummadiisa u shaqeyn doona haduu baarlamaanka helo iyo hadii uu fulinta ku biiro iyo haduu maaragtay ku biiro maaragtay garsoorkaba waxaan ahay nin aqoonteedii leh siyaasi soo kordhay u shaqeyn doona كمان حدنا ماركتي إن برلمان كوكلية سياسي نمضيد. ويه مهدي قبل كأوضل يقولها سوماليان مدام هذا الصور عطي كسرت حد هذا محلسته مشرحين تقول تمي دونا قد هقولش وكذا دياك واحد شراء إن يدور أجران قبل كيكشان حاونضا ففوق سيدا كورونا فيروس وكلي يقول أبارك كشران تحصل أنت بدن أي أتكاد وتو إن الله يولي وترشدو أي سامحين سيدي لغو تلقى يود عضو
marka maxaa is leedahay in ay tahay in xukuumaddu oo ka masuul doorashada ay si bulshada loo badbaadiyo doorashadan u dhacdo maxaa is leedahay adigu markaa fikir ahaan way ku habboon tahay in maanta xukuumaddu tallaabada qaado horta xukuumaddu tallaabooyin fara badan bay qaaday oo ay ku xakameynayso xanuunkan coronavirus wacyigelin joogto ah ayay sameeyaan wasaaradda caafimaadka oo ka masuula had iyo jeer fariimo waxay noo soo diraan ay leeyihiin dadku ha kala fogaadaan dadku maaragtay maaska xidhaan dadku maaragtay ha is ilaaliyaan qofka xanuunsan ha laga fogaado marka dawladdu horta dadaal badan ayay heshaa ugu dambeyn dawladdu waa tan keentay talaalkii marka talaalkii gobolkeena oo kale maanta ka bilaabmay dhakhaatiirtu maaragtay ku bilaabmay dadka kalena way ku xigi doonaan marka xukuumaddu dadaal badan bay wadaa oo ku hambalyeynayna oo ku taageersanahay ilaahay ka jisaysiyo waxa kale oo marka aan ku dari lahayn dadweynaha qaataan talooyinka caafimaad ee maaragtay ay xukuumaddu soo jeedinayso wacyigelintana ha la qaato arinka doorashada waa arin u yaala komishanka doorashooyinka qaranka marka annagu waxaan ahay xubin ka tartamaysa marka diyaar baan u ahay anigu waqtiga jadwalka la dejiyo maalintaas aan galayaa